السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سودوا ومقال عصب يجتنكني أرداتي في مقعي عبد الرحمن سلطان يوسف مقال كنا مانتا waxaanu ku falanqeynaa oo ku hordhacaynaa kulamada wareegisteeda ee tartanka Champions League kulamada habeenka ugu horeeya ee la ciyaari doono salaasada kulamada dhexmari doona kooxda Benfica oo garoonkooda ku marti gali doonta kooxda Inter Milan iyo kulanka weyn ee dhexmari doona laba kamid ah kooxaha loo sharaxayo ama loo sadaalinayo hanashada Champions League sanadkan Manchester City ayaa garoonkooda Etihad Stadium ku soo dhaweyn doonta kooxda Bayern Munich kulan lagu tilmaamo karo runtii final aan goortiisi la ciyaareen muuqaalkan maanta asxaabi waxaan si tafatiran uga hadlaynaa focus ka saari doona kulanka City iyo Bayern dhexmari doona iyo dhibcaha lagu kala guuleysan doono iyo waxyaabaha labada kooxood ay iskaga mid yihiin iyo sidoo kale ay ku kala duwan yihiin soo dhawaada asxaabay idinka oo mahadsan haddii horta marka hore ku horeyno kulanka Benfica iyo Inter Milan ku dhexmari doona garoonka Stadio de Luz garoonka kooxda Benfica runtii waxaan dhigi karaynaa waa kulan 50-50 waa kulan aad iyo aad isugu dhow kulamada wareegan la ciyaarayaan runtii waxay ku wanaagsan yihiin dhamaantood isugu dhow yihiin marka laga reebo kulanka Real Madrid iyo Chelsea runtii sanadkan aad iyo aad foomkooda Real Madrid ay ka yara wanaagsan tahay laakiin saddexda kulan ay kale waa saddex kulan oo isu dheeli tiran si yaani aan la saadaalin kareen gaar ahaan kulamada Man City, Bayern Munich, Inter, Benfica iyo Napoli iyo Milan waxaanu ka hadlaynaa kooxaha Benfica iyo Inter Milan oo runtii yaani labada kooxoodba ay soo bandhigeen xilli ciyaareed aad iyo aad u qurux badan gurubyo aad iyo aad wadaga ka soo baxeen gaar ahaan kooxda Benfica waxay kaalinta koobaad ka soo baxday gurub ay ku helinayeen kooxaha waaweyn ee Paris Saint-Germain iyo Juventus Juventus labadii kulanba ka guuleystay Paris Saint-Germain labadii kulanba barbara kula dhameystay runtii natiijooyin aad iyo aad u waaweyn oo kooxo waaweyn aanay sameyn kari lahayn sidoo kale wareegga 16 waxay ku burbursadeen oo ay ku xasuuqeen kooxda Club Brugge iyagoo wareeggan ku soo gaaray yaani qaab ciyaareed heer caalami ah dhanka kale kooxda Inter Milan ayaa kaalinta labaad kaga soo baxday groupka gerida groupkii ugu adkaa tartanka Champions League xilli ciyaareedkan group ay ku helinayeen kooxda Bayern Munich iyo Barcelona waxayna ku guuleysteen inay Barcelona ka saaraan oo ay kaalinta labaad ay ka dafaan iyagoo kulana ka adkaaday kulan wall khalaasana ku soo bandhigay garoonka Camp Nou oo 3-3 ku qabtay waxay soo gaareen wareegga 16 waxayna la ciyaareen koox kale oo reer Portugal waxay la ciyaareen kooxda Porto waxayna runtii soo bandhigeen kulan hore oo weeraraan aad iyo aad u wanaagsan oo ay runtii dhalin kariyeen gool iyo 2 iyo 3 iyo wax ka badan ba laakiin nasiibku hal gool ay ku dhaliyeen kulankii dambana waxay soo bandhigeen ciyaar yaani difaacasho oo ilaa daqiiqadii koowaad ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ay natiijada ilaashanayeen labada jeer bay ku guuleysteen waxayna sidaas ku soo gaadheen wareegga 8 runtii waa laba kooxood oo tay ahaan isku dhow يعني magacahan waxaan dhigi kareenaaba wax yaro wanaagsan kooxda Inter Milan laakiin xilli ciyaareedkan qaabka ay Benfica u ciyaarayso runtii waa qaab ku soo dhow kooxaha Napoli, Arsenal, Manchester City kooxaha ugu kubadda wanaagsan Europe ayay kamid tahay halkan waxa ku timi yani awood iyo xoog ayay ku timi yani ma koox nasiib ku timi ama koox nasiibku uu caawiyay iyo isku aadku uu caawiyay sadarteed kulankan dhinac kasta u dhici karaya gaar ahaan marka la eego in kooxda Inter Milan garoonkooda lagu dambeyn doono kulankan waxay ku dadaali doonaan ma umaleynaya sida aan filayo difaaca iyo inay counter attack ay ku ciyaaraan halka kooxda Benfica ay yeelan doonto yani gacanta sareysa ay kubadda maamulan doonaan dhirirna badan ku ciyaari doonaan maadaama garoonkooda ay joogaan iyo maadaama kalsoonidoodu aad iyo aad u sareyso waxaan dhigi karnaa runtii waa kulan labada kooxoodba ay ku dadaali doonaan 100% inay soo gudbaan waayo labada kooxood waxay dareemayaan in ay nasiibku sidan kaga adkaan kar lahaa haday ku dhici lahaayeen kooxo City oo kala Bayern oo kala Real Madrid oo kala ku dhici lahaayeen nasiibku labadu waxay dareemayaan inay u heliyay waayo asxaabi haddii nimaadno kulanka weyn ee dhex mari doona kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich runtii waa kulan aad iyo aad u weyn waa kulan dunida oo dhan ay wada sugayaan waa kulan yani sida gaarka loo xiiseeyo waa kulan kaas oo ogsoonnahay kulanka koowaad wuxuu ka dhici doona garoonka Etihad Stadium kooxda Manchester City ay garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda Bayern Munich runtii kooxda Manchester City si wanaagsan ay isaga celisay Bayern Munich kulamadii 6 kulan ay wada ciyaareen tartankan Champions League oo badankooda ay ahayd yani 2012 iyo 13 ay waxba ku wada kulmeen gurubyada kooxda Manchester City 3 jeer ay guuleystay Bayern Munich 3 jeer ay guuleystay waqtigaas waxay ahayd waqtigii yani Manchester City ay Champions League ugu horeysay ay ciyaarisay waxayna si kartile isaga dhiciyeen oo isaga celiyeen Bayern Munich oo yani kamid ah kooxaha ugu waaweyn dunida laakiin waqtigu uu isbedelay Manchester City iyo Bayern Munich laba kooxood oo isku herdhow waxa meel karana Manchester City ayaa yara faradheer oo ka yara wanaagsan Bayern Munich sanadihii ugu dambeeyay laakiin kulankan waxa Bayern Munich ku imanayaan iyagoo tababarihii iska bedelay
Julian Nagelsmann iska ceyriyay sababaha ugu waaweyn ee u ceyriyaan ama koox shaqada ugu yeeriyeen waxa kamid ah inay u arkeen inaanu ka badin kareen kooxda Manchester City oo yeedheen tababare Thomas Tuchel oo runtii yani sanad xusna 2022 ka guuleystay finalka Champions League Manchester City kulankan maxaynu ka filan kareynaa sidee ay ku ciyaari doonaan maadaama ay la ciyaarayaan yani koox nooceeda aanay hore u la ciyaarin yani Bayern Munich lama mid aha koox sida Real Madrid oo kala xitaa lama mid aha koox Atletico Madrid oo kala oo xilciyaareedka hore la ciyaareen xitaa kooxaha kula ciyaaraan horyaalka yani lama mid aha waayo kooxaha horyaalku waa kooxda Manchester City u ogolaada inay kubadda ay maamulato pressurekoodu aan aad iyo aad u cusleen kaliya Liverpool ayaa pressure culus ku ciyaarta Liverpoolna yani natiijooyin fiican bay sanadkan ka xaqiijisay Manchester City kulan Community Shield ka guuleystay kulankii koobaad ee horyaalkana way ka adkaatay sidoo kale sababtan u leeyahay sida Real Madrid la ciyaarayso Real Madrid kuwa koox space-siisa kooxaha kale laakiin Bayern Munich ma sii socon space oo naqaska ay ku dhajinayaan barbilow ilaa iyo barnaamijyo uga adeegsanaya khadka sidarteed Manchester City kulankan waxay ka filanayna yani inay kubadda ay maamulan doonaan laakiin aanay u maamulan doonin sidii aynu kala qabsanay oo kooxda Bayern Munich ay cadaadis badan saari doonto oo waliba cadaadis ka bilaabmaya yani wariyahanada hadii Choupo-Moting uu ciyaarayo wadanka aad iyo aad ugu fiican yahay Gnabry iyo Sane oo kale waayo waxyaabaha ay ka caawin karto waxa kamid ah kooxda Manchester City xilciyaareedkan waxaanu ku aragnay marar badan negative ball position kubadda haysasho negative oo kooxda aan faa'iido badan u lahayn waana waxyaabaha Manchester City ilaa imika horyaalka aanay u hogaamineen oo ciyaaro badan ay kubadda maamusheen ayaanay guuleysan taasna hadii Bayern Munich la ciyaaraan walaga adkaan doona dhan kale hadii Bayern Munich u nimaadno waxaan dhihi karaa waa koox difaac ahaan sanadkan aad iyo aad u liidata oo daafacoodu yani kulan qura kuma qancinayo gaar ahaan kulamada horyaalka Bundesliga waayo waxaan dhihi karaa yani Champions League waxaan dhihi karaa asxaabay Champions League yani pressurekoodu aad buu u sareeyaa waana yani kulamo ay jecel yihiin inay ciyaaraan gaar ahaan waxa la ciyaareen wali lama ciyaarin ma dhihi karaa koox Manchester City oo kala Barcelona iyo Inter bay kula kulmeen gruubyada oo runtii yani dibdhis isku waday gaar ahaan Barcelona foomkoodu aad buu u liitay waqtigaas sidoo kale wareeg 16 wax kula ciyaareen kooxda Paris Saint-Germain waxaas oo dhan waa kooxo gool ka dhalin kariyay ama ka guuleysan kariyay Bayern Munich hadana taasi sheegi meeshaan kooxda difaaceedu aanu xumeyn difaaceedu aad iyo aad sanadkan u xun yahay oo mid kamid ah difaacyada ugu xumaa 10 sano aynu soo daawanay Bayern Munich laakiin midda qurada ay ku wanaagsan yahay kulamada Champions-ka difaaceedu waa yara macquul sidoo kale ويرى دعمة تاسوميدا كيف يسمى مانشستر سيتي هذه مدام هيستان دي لبا جوهرات جوهرات خدك دحه كيفن دي بروين iyo goolaliyaha heerka caalamiga Erling Haaland sidoo kale asxaabi dagaalku waxaanu fulanayna ciyaartan dagaal khadka dhaxa يعني كيميتش ciyaartoyda كيميتش oo kala sidoo kale Kevin De Bruyne oo kala labada kooxood waxay ku dadaali doonaan inay kubadda khadka dhexe ka ciyaaraan oo weerarka ay gaarsiiyaan taasna runtii war bay ku keenayso dagaal waliya ay labada kooxood ay ku dhex iman doonaan intaas ay maanta asxaabi maqalkan inuu yahay waxaan rajeynayaa in aan si wacan idinku falanqeeyo si wacan la dadihiyay ciyaartan inta ku kulmi doono asxaabi maqal kale waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh